Kaynta isdilka ee jaban maaha kuwa qalbigooda daciifka ah, 5 xaqiiqo ah oo qaboojinta laftabarta. In ka durugsan dadka waalan ee jooga dhul fog oo jaban ah waxaa ku yaal kayn ufan oo loo yaqaan Aokigahara, sidoo kale loo yaqaan badageedaha. Waa kayn ufan oo qarinaysa waxyaalo qarsoon oo sugaya in la ogaado. Dhulkan mugdiga ah wuxuu ku yaal saldhigga waqooyi galbeed ee buurta Fuji ee caanka ah ee Jaban, waxaana adduunka oo dhan loo yaqaan kaynta isdilka. Si sax ah ayaad u akhriday. Inkasta oo kaynta muuqaal ahaan sixir ah, qurux badan, wax halkan ma dareemayo sax. Aamusnaanta argagaxa leh ayaa ku xeeran kaynta iyada oo sii kordhinaysa qabow aan la macnayn karin. Saadaasha dhulgariirkii Baba Fenga ee Jaban waxay ku daraysaa sirta oo dhan. Sanado badan, kayntu waxay heshay sumcad caalami ah sababo murugo badan dartood. Soo booqdayaashu kama hadlaan quruxda dabiiciga ah ee ku xeeran kaynta. Kaynta waxa ay leedahay taariikh aan xasiloonayn taas oo dhibsatay booqdayaasha, ilmu nafsiga iyo sheekooyinka aan caadiga ahayn ee jecel. Qoraalkan, aan eegno 5 xaqiiqo oo naxdin leh oo ku saabsan kayntan. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirta mahadsani. Goob isdilid oo caan ah. Aokigahara waxay heshay magaceeda caanka ah ee Forest Still sababtoo ah dad badan ayaa halkan isku dilay. Sida ku cad xogta bilayska Jaban laga soo bilaabo horaantii 2 meeyadii, in ka badan 1 qof ayaa isku dayay inay naftooda dilaan halkan sanad walba, iyadoo qaar badan ay sababeen dhimasho. Waa arrin murugo leh in maamulka maxalliga ahi ay si joogto ah u baadho meydadka kaynta. Sheeko qadiimi ah. Halyeegu waxa uu leeyahay khuraafaadka Jaban in Aokigahara ay ku dhufatay Yurei, oo sidoo kale loo yaqaano nasasho la'aanta ruuxyada dhintay. Kaynta ayaa lala xiriiriyaa dhaqanka taariikhiga ah ee Ubasute, oo ah caado ay xubnaha qoyska ee waayeelka looga tagay inay ku dhintaan gobollada fog waqtiyada macluusha. Sheekooyinkani ma jiro dhawaaq iyo calaamado guds ah. Kaynta ayaa ah mid aad u ufan oo ay adag tahay in la helo calaamadaha gudska gudaha. Geedaha halkan ku yaal waxay xanibi karaan codka dibadda si buuxda ugu daraya aamusnaanta dhegaha. Ciidda foolkaanaha ee kaynta ayaa qani ku ah birta, waana sababta suurtogalka ah ee faragelinta kombiyuutarada iyo calaamadaha gudska. Soo booqdayaasha kaynta waxay noqdaan kuwa jahawareersan markay gudaha ku jiraan. Tabarucayaal ayaa gaaf wareegaya kaynta. Waxaa jira mutadawiciin geesiyaal ah oo gaaf wareegaya kaynta si ay dadka uga badbaadiyaan inay sameeyaan doorashooyin aan loo baahnayn. Waxaa jira xitaa boodhadh ku qoran meel ka baxsan kaynta oo akhriya. Noloshaadu waa hadiyad qaali ah oo ka timid waalidka. Ka fikir mar kale waalidka, walaalaha iyo carruurtaada. Xidhid cajaladaha si aad dib ugu hesho. Waxay u badan tahay sida majaajilada gudaha kaynta dhexdeeda. Soo booqdayaashu waxay inta badan cajalado ku xidhaan geedaha ama xadhiga si ay dib ugu helaan. Si kastaba ha ahaatee waxay leedahay saamayn yaab leh. Inta badan waddooyinkan qaar ka mid ah waxay horseedaan xeryo la dayacay iyo alaab shakhsiyeed. Dhaxalkeeda naxdinta leh ayaa weli soo jeedinaya dareenka dadka adduunka oo dhan.